tahay su'aal muhiim ah horta waxaan rabaa inaan ku sheego farax walaalkay dhammaan hadda degmooyinka gedo oo gacanta lagu hayo howlgal aniga iyo maxamuud siid aadan iyo sanatar fartaag iyo bare aadan shire aan madax ka ahayn barahiraale baa lagu qabtay degmooyinkan oo shabaab looga xoreeyay dadkaas geesiyaasha ahaa oo iyadoo koonfurta soomaaliya oo dhan ay shabaab haysteen ilaa garbaharre iyadoo hal askari oo amisom ah uusan la soconin ama ajanabi uusan la soconin degmooyinkaas xoreeyey weliba dagaal culus ku galay kadib garbaharre qabtay 2 sano hayay ayaa hadda silent saarantay anaka ujeedka iyo kaladanada waxa waaye aan ku socono inaan shacabka iyo ciidamada iswaafajino si loola diro argagixisada hadda laba habeen ka hor nin oday ahoo bay ku dileen xarunta gobolka garbaharre ee shabaab degmadan balad xawana waxay ahayd dhimashadii ugu badneed ee shabaab u geysteen shacabka Soomaaliyeed ciidamada iyadoo ay way u diyaarsan yihiin markasta inay shabaab la diraan oo dhimasho u joog waayo arrintaasaan u soconaa waxa ku soo hartay su'aasha bu'aale jubbada dhexe hadda muddo dheer waxa haysta shabaab reer Jubbaland maamul goboleedka Soomaaliland Jubbaland